yaabay maxaa loo dhacayaa hintidiisa miyaad u aragteen horumarkiisa waad yaabay maxaa loogu hinjibadayaa maxaa loogu hinjibadayaa geysigan maxaa loogu hinjibadayaa waa yaabay miyaa Soomaaliye dadkaad dad kala takoortaan adeer gacali dadka sidaa laguma dhaco allaha gaarsiiyey horumarkiisa wanaagiisa oo ku gaaray marna maku dulqaadanayno insha Allah marna dulqaadanayno Soomaali weyn bulshada Soomaali oo dhan waa inay ka xanuunsataa shaasha waxna u qabataa af waa uga qabataa waqti badan baan dalkeydii waqti badan baan dalkeydii gumaystay gumeysi waan diiday geeri baan ka tagay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu Soomaali weyn ehelkeedaba meel kasta ay joogto waan salaamayaa walaalayaal cawada halkan waxaa soo fariistay arrinta walaalkayga qaaliga ah ee wariyaha ah shaasha geesiga maanta cid u hadasho iyo cid ka dhaqanto ayna jirin maanta awoogga shaasha maanta waxaa ku sugan yahay dhibaato aad u weyn oo ah maanta ninkii hantidiisa la haysto reerkiisii iyo ilmihiisii iyo dadkiisii iyo dalkiisina maanta aan tegi karin oo naftiisii kula soo cararay magaalada Muqdisho sida aan ognahayba sana aad ogtihiinba sidaad u maqasheenba maanta cidna uma hadasho cidna kama dhaqanto walaalayaal shaasha oo wariye Soomaaliyeed oo rugcaday ah kana hadlo dhibaatooyinka dalka una hadlo ummadda Soomaaliyeed oo dhan ka hadin qabiil maanta waxaas ilaahay xukmay shaasha inay maanta hantidiisii xoog laga haysto oo maanta ciyaalkiisii aridiisii amoonta u booqan karin intaas maxaa keenaa si horumarkaanu ku gaari waa cadowgnimo iyo xaasidnimo dhammaan bulshada Soomaaliyeed
kala duwan dal iyo dibadba inta joogto. Shaashaa oo walaalkeena ah waxaan codsanayaa si degdeg ah bulshada Soomaaliyeed inay aga jawaabto shaashaa dhibaatada loo geystay. Maanta adduunka la joogo waa laga tagaa. Naf walbaba oo maanta adduunkan ku nool waa meyd. Abuukar shaashaa walaalkeyga xaaladiisa waad garan kartaan. nin maanta haddii nin hal ay ka maqan tahay waxaanoo gacanta geliyay waaye. Waxa ka soo dhow waa ogtihiin. ninka ragga ana hadduu waxyaalahan oo kale ay ku dhacaan laba maadameed oo noqdaa inuu duurgal noqdo iyo inuu naftiisu waayo. maadaama maanta walaalkeena waxyaalo badan ay ka maqan yihiin oo tawanayo, waxaan codsanayaa mar labaad waxaan codsanayaa iyo mar saddexaad inay bulshada Soomaaliyeed ay ka jawaabto shaashaa. maanta waa rugcadaay ugu soo celinayaa Soomaaliyeed. bulshada Soomaaliyeed wax u hayo haddana u hayo. marka inay ka soo jawaabaan codsigiisa ay maanta u kacaan sidii lagu soo celin lahaa hantidiisii iyo qalabkiisii oo lahaa milkigiisa u lahaa, xorriyo u heli lahaa oo la noolaan lahaa ciyaalkiisii aragdiisii. walaalayaal way xanuun badan tahay sidaan oo kale. adiga hadda i daawanayo haddii ku qabsato kuma dul qaadateen mana ku sabarteen, wax unbaad samayn lahayd. shaashaa waa nin nool culus sabray ku soo gaabsaday hadalkiisa ee bes oo ka hadla dhibaatadiisa. ninka raggana waa inuu dhibaatadiisa ka hadla. hadduu awoodin inay maanta wixiisii ku soo qaato xoog. walaalayaal cadaalad ma jirto. sidaan cadaalad maaha. bulshooyinta mar kale waxaan ugu baaqayaa inay cadaaladda ay ka tiriso shaashaana ay u kacdo si uu ku heli lahaa xubnimadiisii ay u kacdo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. kulanti dambe wacan oo wanaagsan daawadayaal. ciddii fiidiyowga soo gaarto hashii sheer garayso hana gaarsiiso shaashaa. garabkiisana annagaa ah Soomaali oo dhan. bulshooyinka Soomaaliyeed intii wax garad ah wax garanayso oo maanta dhiig leh hadduu alle idmo garabkiisa ayaan taaganahay. walaalkeena naftana mar bay go'daa.
marka insha allahu tacaala waxaa waaye waxaan ahay garan maayo dhiiggeeda aad u kacsan yahay waa garabkiisa ayaan taaganaa insha allah nafteydana waa u hurayaa haddii laga baxsan waayo ayna ka furin wayso insha allah